ayada oo aan ognahay sidaas inay tahay oo colaadu ay dhibaatadaas ay inagu hayso ayaa waxaa nasiib darro ah in kuwa mas-uuliin sheeganaya ay maanta abaabulayaan in wiilal Soomaaliyeed oo xataa ka wada tirsan ciidamada qalabka sida ay isku dilaan waxaa habeeniya maalin aad ogtihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubeysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyay deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS oo ah waajibaad saaran dawladda waxaad ogtihiin in ka badan 25 goobood oo ay ATMIS ka baxday oo tiradoodu gaarayaan 7,000 oo askari ayay horay ula wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ay iyagu amnigooda sugayaan waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Kismaayo laga raro habeeniya maalin in ay ka baxeen ciidamadii ATMIS waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyihii deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ATMIS kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meesha keenno ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dawladda federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyay in halkan ciidan military la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas dawladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii ATMIS ka baxeen ayaan u dirnay nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaas inay yihiin ciidamo oo occupying force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oo ay ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin amal oo dalkii ku soo duuleen sidaas ayaa loo fasiray sidaas ayaana loo qaatay sidaas ayaana waxa la bilaabay in la deploy gareeyo ama la diro maalin walba doomo ay ka buuxaan wiilal Soomaaliyeed oo hubeysan waxa ilaahay mahadiya hadii qof mas'uul sheeganayay uu isku dayay in uu isku dilo wiilal Soomaaliyeed inay wiilasha Soomaaliyeed ay ka caqli badiyeen ka bisayl badiyeen waxaan halkan runtii ka amaanaya uga hambalyeynaya geesiyaasha ciidamada Jubbaland oo runtii ah wiilal lagu bartay geesinimo iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaag la yaqaano iyo sabir oo ayaga oo aan weligood laga yaabo inay muddo dheer aysan xataa mushahar qaadan xataa aan dadka shaxaadin waa la yaqaanaa aadaabtooda iyo dhaqankooda macruuf waaye dadka joogana way yaqaanaan dadka reer Kismaayana way yaqaanaan kuwa reer Jubbalandna way yaqaanaan ciidamadaas runtii oo sharafta leh hadii la yiri ordaya walaaladin la soo dagaalama waxay yiraahdeen la dagaalami mayno way diideen up to now waxa lagu kari laayahay inay walaalkood oo Soomaaliyeed oo ay ciidamada qalabka sida ee qaranka ka wada tirsan yihiin in ay xabada ugu ridaan because in uu yimid geyigiisii dalkiisii asaga oo difaacaya qaranka Soomaaliyeed عليه إذا ما داس همبليو والمهتنتين وحنا جرتين رنتي كوي إن صادري وحينا جرن آيات جرتين وحد يلتين درين سومالي نمو درين ودنيات يدرين مسلمين انتبه آيات موجسين دولة الصومالياتنا ويدين أبى الجوديسة شعب الصوماليات ملك استوجوه ويدين أبى الجودية هدي أي ربين قار كم ده مسؤولين ته maxaan ku dhahaa idin soo diray in ay reer Jubbaland magac dilaan magacii reer Jubbaland idinka kor u qaad idinka sharaf u sameeyay idinka karaamo u sameeyay annagu waxaan leenahay
runtii cid kastoo colaad wada oo colaad waliba unnecessary ah oo loo baahnayn oo wax lagu qoslaa runtii in wiil Soomaaliyeed la yiraahdo ord walaalka la soo dagaalan oo ay hal cadow wada leeyihiin oo halka cadow ay wada leeyihiin ay yaqaanaan oo ay cadowgooda kaliya u yahay khawaarijta waxa way arintaas runtii foosha xun waa nasiib darro waxaana leenahay annaga sidii uu Ilaahay u sheegay kuwa fitna walayaasha kullama awqadu naaran lil harb adfaaha Allah markastoo ay isku dayaan inay dagaal iyo fitna huriyaan Ilaahay baa damiya markastoo ayaguna kuwaas hadda isku dayaan kullama awqadu naaran lil harb markastoo isku dayaan inay dab fitna huriyaanba adfaaha Allah Ilaahay baa daminaya maxaa jira wiilashii baa iska diiday oranay adeer nagu isma dilayno raali naga ahaado marka Ilaahay baa ku mahadle oo naarta ay shidayaan iyo fitnada ay shidayaan mar walba daminaya annaga oo taas ka duulayna fitnada ay wadaan waa daminaynaa waxaan ku daminaynaa nabad waxaan ku daminaynaa walaaltinimo waxaan ku daminaynaa wada hadal waxaan ku daminaynaa soo dhaweyn waxaan ku daminaynaa in aan dalkani lahayn cadow aan ahayn khawaarij shabaab way cadowgeen enemiga kaliya qabna waa kaas wax kale ma jiraan waxaan wiilasha ugu baaqayaa mar kale yaan la idinka leexin jidka yaan dab la idinku shubin yaan naar la idin gelin yaan la idinka dhumin maskaxda idinka saxsan meeshaad marteena saxa saad wax u garateena saxa kuwa kale maxaan ku dhahaa idin sida qaldan raba inay idin adeegsadaan ka yeelin sidaad uga diideen waad ku mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin dalkani waa dal qura Soomaaliya la yiraahdaa dalkani waa mid Soomaaliya la yiraahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed meel mamnuuc ka ah jiraan ayaga waajib ka saaran yahay difaaca dalka waxa waajib ka saaran yahay inay xuduudaha sugaan waxa waajib ka saaran yahay constitutionally ayay sidaas constitution ka faraya dalka ayaa faraya marka waxaa la rabaa in dadka shacabka Soomaaliyeed aan lagu dirin wiilashooda aan loo fool xumayn wiilashooda aan loo shisheeyeyn wiilashooda qarannimada Soomaaliya waxa base u ah qaran kastana adduunka oo dhanna sida ah oo lagu faanaa xoogooda iyo ciidankooda waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed oo la tababaray oo la qalabeeyay oo ku faanaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacayo in dad mas'uuliin sheeganaya ay dadka ugu baaqaan in lala dagaalamo inuu cadow yahay inuu sogoloot yahay inuu san dalka lahayn taas waxa way waa nasiib darro laakiin dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan wiilashaas la yiri orday la soo dagaalama ayaa iska gartay inta yar oo laga yaabo in media beenta ay khaldaysana waxaan rajaynayaa inay dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa inay mas'uuliintaas ayaguna dib isugu noqdaan waxaan rajaynayaa in la fahmo waxaan nabad iyo deganaansho iyo walaaltinimo ahayn dalkan inuu horay u soo daashaday haddana waxa haray ay tahay dawladnimo ku dhisan nabad walaaltinimo iyo peace and security wax kale oo meesha yaala ma jiraan mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda oo soo abaabushay shirkan qiimaha badan ama xuskan sharafta leh maalintan iyada ah aan xusayno la dabaaldegayno marna aan la dareemayno xanuunka ay qabaan iyo barrierka kale ee jira ee bulshadeenu ay ugu horeyso runtii Soomaaliyeed oo aan halkan uga baaqayo culimada macallimiinta civil society-ga hay'adahooda kala duwan iyo cid kasta oo wax garanaysa ama maxaan ku dhahaa bulshada hoggaankeeda kamid ah in aynu dhaqankaas ah inaan dadkeenna
discrimination ku samayna qiimaha badan ee sharafta leh inaan iska bedelno haddaad taariikhda dib u raacdaan yani meel adduunka hadday tahay taariikhda islaamka taariikhda caalamka dadka micnaha ku yeeshay meel dadkaas discrimination looga sameeyay adduunka kama jirto nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam xukunka ayuu markii ugu horreysay ayuu maxaan ku dhahaa dadka indhaha oo ah dadka naafada ah ayaad ogtihiin cabdullaahi ibnu may maxaan ku dhahaa ibnu maktuum in uu magaalada madiina uu madax ka ahaan jiray ayadoo hebello joogaan oo aad garanaysaan qaabkaasay ahaayeen caalamka dadka ugu contributionska badan ee buwaagta qoray ee professorada jaamacada noqday ee khutabada masaajidda ugu waaweyn noqday ee muftiyaasha waaweyn ee dowladaha adduunka noqday kulligood waxay ahaayeen dad wada lixaad labay ahaayeen haddana way yihiin qayb badan oo ka mid ah marka waxaan u baahannahay dadkaas hadda meeshan ay ku qoraday disability is not inability saas maaha waa run yani qofka inuu disability macnaheedu maaha qofku inuusan awoodba lahayn ma aha kaa maskax badan oo kaa caqli badan oo kaa karti badan oo kaa initiative badan haddaynu marka ka faa'iidaysan weyno intaasoo dhan ogaada waan khasaarsannahay bulsho dhan caqli badan iyo maskax badan iyo tabar badan ay naga maqan waxaa طبعا nasiib daraa inaan iskuuladeennii iyo jaamacadaheennii iyo waxba aan lagu soo barin xataa qofka dhagoolka inaan af garanno laguma soo barin ma af naqaan gabadheedaan say ay u af garanayso anigu ma af garanayo waana ka xumahay waxaan aad u jeclaan lahaa inaan barto oo lay baro afkaas nasiib uma yeelan inaan barto runtii marka inaynu marka aynu waxbarashadeenna wasaaradda waxbarashada waxaa nala joogtaa wasiiru dawlihi baa joogta waxaan ogahay inay dadaal badan ku bixinayaan in manhajkii la sameeyo af soomaali lagu sameeyo haddii markii hore dadka maqal kale ay afaf kale lagu midaarayay waxaan rajaynayaa insha allah in afkooda loogu midaaro hooyo oo deedna bulshadana la isku dayo in la baro oo ay bartaan oo kulligood aan baran haddii ilaa idhaahdo oo aan la wada hadli karno oo aan la sheekaysan karno wax badan oo ay hayaan oo qisas ah oo cilmi ah oo aqoon ah oo ay dadka la wadaagi lahaayeen lama wadaagi karaan maxaa jira barrier waxaa jira afkii oo inay isku fahmi karin ayaa jira marka waxaan rajaynayaa inaan taasna aan ka gudubno marka waan u mahadcelinayaa mar kale wasaaradda oo runtii dadaal badan gelisay oo xafladdan soo abaabushay waxaan u mahadcelinayaa mar kale safiirada